bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah dagaal dhimasho geystay oo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ku dhaxmaray magaalada Muqdisho galmudug oo xiriirka u jartay dawladda Soomaaliya Kenya oo gacanta ku dhigtay lacag uu leeyahay sarkaal ku dhow qoyska madaxweyne Farmaajo ganacsi faa'iido badan laga helay oo ka socda xarunta Xalane dawladda Ingiriiska oo muwaadiniinteeda uga digtay dalal ay ku jirto Soomaaliya iyo Kenya oo ka hortimid in laga weeciyo shirarka dawladda Soomaaliya ay qaybta ka tahay ee lagu qabto Kenya wararka dibadda wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah Kenya oo bangiga adduunka ka heshay lacag deyn oo malaayiin dollar ah iyo Netanyahu oo ku guuldareystay inuu dhiso dawlad wadaag ah daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena cusub ee barta YouTube-ka fadlan rukuma barteena oo subscribe dheh si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya caalamka isku horimaad dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ku dhaxmaray magaalada Muqdisho sida ay sheegayaan wararka laga helay xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir waxa isku horimaad khasaare geystay oo dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya goobjoogayaal ayaa sheegay in isku horimaadka uu dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ku sugnaa deegaanka Xoosh iyo ciidamo weerar ku soo qaaday uu ku dhintay hal askari isla markaana ay ku dhaawacmeen askar kale oo ka tirsan ciidanka militariga ee qaybta ka ahaa dagaalka ciidankaasi ku dhaxmaray xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir ciidamada diriray ayaa waxa la sheegay inay kala wateen sarkaal lagu magacaabo Liibaan madaxweyne oo ka tirsan guutada saddexaad ee ciidanka militariga Soomaaliya iyo sarkaal kale oo magaciisa lagu soo koobay CD waxaana goobta isku horimaadku uu ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya iyo maamulka degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir war ka soo baxay booliiska Soomaaliya gaar ahaan taliska booliiska degmada Dharkeenle ayaa lagu sheegay in isku horimaadka ay ka qayb qaateen gaadiid dagaal oo ay wateen ciidanka militariga Soomaaliya laakiin waxa booliisku uu sheegay in aanu jirin wax khasaare ah oo dadka rayidka ah soo gaaray marka laga reebo ciidanka militariga ee isku horimaadku u dhaxmaray oo dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray booliiska Soomaaliya iyo maamulka degmada ayaa wada baaritaan la xiriira isku horimaadkaasi waxa uu salka ku hayo iyadoo si rasmi ah aan loo faahfaahin waxa uu la xiriiro isku horimaadkaasi dhaxmaray ciidanka militariga Soomaaliya dawlad goboleedka Galmudug ayaa ku dhawaaqday in xiriirkii wada shaqeyn ay u jartay dawladda Soomaaliya iyadoo wali uu sii jiitamayo khilaafka siyaasadeed u dhaxeeya Galmudug iyo dawladda Soomaaliya maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay inay hakiyeen xiriirkii wada shaqeyn ay kala dhaxeeyay dawladda Soomaaliya taa oo sabab looga dhigay faragelin kala qaybin iyo isku day burburinta Galmudug oo ay wadaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Galmudug war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay qaadayso mas'uuliyadda wixii qallaasa siyaasadeed iyo mid amni ee ka dhacay deegaanada Galmudug waxay isku dayday xoojinta wada shaqeynta dawladda nasiib darro madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhaqaaqay fikir madhaleysnimo ah oo afduub lagu geysanayo awoodda dastuurka uu siiyay maamulka Galmudug ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Galmudug warar la helay ayaa waxa ay sheegayaan in cabashada Galmudug ay salka ku hayso talaabooyinkii u dambeeyay oo ay qaadeen baarlamaanka Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin ansixinta sharciyada batroolka iyo doorashooyinka taa oo ay Galmudug sheegtay in aan lagala tashan maamulka Puntland ayaa sidoo kale 27kii bishan sheegay inay hakiyeen wada shaqeyntii kala dhaxaysay dawladda Soomaaliya iyagoo sheegay inaysan aqoonsanayn dhammaan sharciyadii u dambeeyay oo ay baarlamaanka meel mariyeen kuwa oo kala ahaa sharciga doorashooyinka iyo sharciga shidaalka iyo xeerarka canshuuraha dalka oo baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen war saxaafadeed dheer oo ku qornaa afka Ingiriiska oo ay Puntland u dirtay beesha caalamka iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa ku sheegtay in dhinacyada uu saameynayo talaabadaasi ay qayb ka tahay dib u eegista dastuurka qorshaha amniga qaranka iyo hanaanka doorashooyinka dalka ee 2020 iyo 2021 dawladda Kenya ayaa gacanta ku dhigtay lacag uu leeyahay sarkaal ku dhow qoyska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo joornaalka The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa daabacay in laanta socdaalka wadankaasi ay garoonka diyaaradaha Nairobi ku qabatay lacag gaarayso 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah sida ku cad warbixinta uu qoray wargeyska oo soo xigatay ila wareedyo waxa lacagtaasi leh sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya walow uusan magac dhabin ruuxa uu yahay iyo jagada uu hayo sarkaalkaasi lacagta waday qormada jaraa'idka
ayaa waxay intaasi raacisay in lacagtaasi la soo marsiiyey dhanka Itoobiya shakhsiga iska lehna uu xiriir la leeyahay qoyska madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. warkan ayaa imaanaya iyadoo shalay Kenya ay ku dhawaaqday in dalkeeda aan la soo gali karin shixnadaha laga leeyahay Soomaaliya taasoo aan cidna la socon. waxa ayna ku goodisay inay la wareegayso haddii ay dhacdo in shixnado dad aan la socon Soomaaliya laga keeno oo la keeno dalka Kenya. madaxtooyada Soomaaliya ilaa iyo haatan kama aysan falcelin warkan oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Kenya ka oo xiisad diblomaasiyadeed kala dhaxayso Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa ka hortimid go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya oo ahaa in shirarka quseeya arrimaha Soomaaliya laga weeciyo dalka Kenya. dowladda Kenya ayaa qaaday tallaabo ay uga hortagayso go'aanka dowladda Soomaaliya ay shaqaalaheeda uga mamnuucday inay ka qayb galaan shirarka ka dhacaya magaalada Nairobi kadib markii Kenya ay fiisaha u diiday mas'uuliyiin Soomaali ah oo garoonka ka qaadan jiray. dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya in wixii shir ah ee quseeya Soomaaliya ay ku qabtaan gudaha dalka ama dalalka kale ee gobolka ama aysan ka qayb gali doonin. dowladda Kenya oo arrinkaasi ka jawaabaysa ayaa waxa ay warqad qoraal ah u dirtay 144 dal oo safaarado ku leh magaalada Nairobi taa oo uga horjeeday go'aanka dowladda Soomaaliya ahaa in shirarka caalamiga ah ay uga weeciso magaalada Nairobi. Kenya ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso mas'uuliyiinta Soomaalida ee imaanaya magaalada Nairobi balse ay lama huraan tahay inay helaan fiiso si lamid ah ajaanibta kale. dowladda Kenya waxa ay sheegtay in ay tahay go'aan u yaala Soomaaliya inay ka qayb galaan shirarka Nairobi ka dhacaya in kale balse ay ka soo horjeedaan in shirarkaasi laga weeciyo dalka Kenya. dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayay hadda u taallaa in iyagu ay go'aan qaataan waxaase adkaan doonta in ay qabtaan shir quseeya Soomaaliya oo ka dhacaya Nairobi haddii ay diido dowladda Soomaaliya inay ka qayb gasho. ganacsi faa'iido badan oo dhaqaale laga sameeyay ayaa waxa uu ka socdaa xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho. waxaa dhawaan soo gaaray xarunta Xalane oo fariisin ay ku leeyihiin ciidanka AMISOM hilib ari laga keenay dalka Australia ka oo ay keeneen UN iyo AMISOM isla markaana loo suuq geeyay suuqyada magaalada Muqdisho isagoo ganacsi ah. waxaa xuuraansi ku haynay ganacsiga ka socda deegaanka Xalane waxaana arrimahaasi wax ka weydiinay dad badan oo noo sheegay in badeecooyin badan oo konteenaro ku jira laga soo dejiyay dekedda Muqdisho. waxaase la yaab leh in aan konteenaradaasi la baarin isla markaana aan laga qaadin wax anshuur ah. ganacsato Soomaaliyeed ayaa dibadda ka keeni jiray hilibka digaaga haatan ogow in hilibkaasi ay keenaan shirkado shisheeye oo degan Xalane kuwa uu ka iibiyo bulshada Soomaaliyeed waliba si aad uga faa'iido badan maadaama aan laga qaadin wax anshuur ah iyadoo Xalane lagu soo geliyo magaca UN-ka iyo kan AMISOM. waxaana ganacsigaasi faa'iidada badan suuqa uu ka saaray shirkado Soomaaliyeed oo hilibka digaaga keeni jiray Soomaaliya. sidoo kale waxaa Xalane ku yaala hoteelo kuwa oo suuq xumo ku riday ganacsatada hoteelada kule magaalada Muqdisho. waxaa dhinaca kale Xalane lagu rakibay warshado sameeya biyaha nadiifka ee watarka iyagoo canshuur laga qaadin. waxaa dadka ay ii sheegeen in waxaas oo badeeco ah laga soo dejiyo dekedda iyo garoonka diyaaradaha waana ganacsi dadban oo ka socda xarunta Xalane oo u muuqato mid curiyaaminaysa ganacsatada Soomaaliyeed. dadka qaar waxay ii sheegeen in wasaaradda maaliyadda looga dacwooday si ay u baaraan konteenarada ay keenaan UN-ka iyo AMISOM taa oo wasaaradda maaliyadda ay wax ka qaban weysay. ganacsatada qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in wasaaraddu ay u xoog weyn tahay ganacsatada ee haatan ay ku socdaan cunaqabatayn dadban iyagoo sheegay in haddii aan wax laga qaban ganacsiga canshuur la'aanta ah ee faa'iidada badan ee ka socda Xalane aysan bixin doonin wax canshuur ah. dowladda Ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u socdaalaan wadamo ay ku jirto Soomaaliya. xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka ee dalka Britain ayaa waxa ay kula taliyeen muwaadiniinteeda inaysan u socdaalin dalka Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiskaasi ayaa waxa muwaadiniinta UK looga digay inay socdaal ku tagaan deegaanada Somaliland oo la sheegay inay ka jirto xaalad khatar ah oo dhanka ammaanka ah. hadal qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka ee dalka Britain ayaa waxa lagu muujiyay inay sii kordhayso cabsida argagixisada iyo afduubka ka dhici kara dalal ay ku jirto Soomaaliya. sidoo kale xafiiska ayaa digniin ka soo saaray deegaano ka tirsan dalka Kenya inaysan muwaadiniintiisa u safrin iyadoo looga baqayo in afduub lagu geysto gudaha dalka Kenya. Kenya waxaa hadda laga afduubtay muwaadiniin u dhashay dalka Cuba kuwa oo la sheegay in ay ku jiraan gacanta kooxda Al-Shabaab. waxaana socda dadaalo dowladda Kenya ay ku doonayso in maxaabiistaasi looga soo daayo gacanta Al-Shabaab.
ururka al-shabaab ayaa khatar ku ah dalalka Kenya iyo Soomaaliya waxaana weerar kala duwan oo labada dal ay ka geysteen ay qasabtay in waxyeello ay gaarsiiyaan ajaanib badan taa oo keentay digniinaha dhanka ammaanka ah ee ka imaanaya dalalka reer galbeedka. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayana waxaa ka mid ah dawladda Kenya ayaa bangiga adduunka ka heshay lacag dhan 750 milyan oo dollar. bangiga adduunka ayaa ogolaaday in Kenya uu siiyo lacag dhan 750 milyan oo dollarka Mareykanka. lacagtaasi ayaa ah deyn ay soo codsatay dawladda Kenya oo u dhigantay 75 bilyan oo shilinka Kenya. bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalahan loo adeegsan doono isbedel muhiim ah oo lagu sameyn doono musuqa ka jira dalkaasi iyo sidii loo xoojin lahaa wax soo saarka iyo dhaqaalaha soo galaya beeralayda dalka Kenya. deynta u dambeysay ee la siiyay Kenya ayaa waxa imaanaysa iyadoo laga walaacsan yahay baaxadda ay leedahay deynta dalka Kenya lagu leeyahay sida uu ku waramay wariye ka tirsan warbaahinta BBC-da. Kenya ayaa horaantii bishan London ka aruursatay 2.1 milyan oo dollar oo deyn ah. dhawaan ayayna ahayd markii muwaadiniinta dalkaasi baraha bulshada ay ku soo qoreen aragtiyo xog badan iyagoo dawladda ku eedeeyay in ay deymo qaadanayso xilli dalka uu tabar daran yahay. balse qaar ka mid ah dhaqaaliyahanada dalka Kenya ayaa u arko wax caadi ah in dal dhaqaalaha Kenya oo kala leh uu deymo qaato si uu ugu adeegsado mashaariicda iyo waxyaabaha kale ee ahmiyadda u leh dalkaasi. khubaradu waxa ay sheegeen in $1 oo deyn ah qofkii qaata uu dulsaar fuuli doono marka uu iska bixinayana looga baahan yahay $1.23 sida ay hadalka u dhigeen. deymaha lagu leeyahay dalka Kenya ayaa kor u dhaafay 51 bilyan oo dollar kuwaasi oo ay ka qaateen deeq bixiyaasha caalamka iyo maalgashadayaal doonaya inay maalgashi ku sameeyaan dalka Kenya. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa ku guuldareystay inuu dhiso dawlad wadaag ah. baarlamaanka Israa'iil ayaa codeeyay in golaha la kala diro oo doorasho degdeg ah la qabto 6 toddobaad iyo dheeraad kadib marka la doortay. ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa muddo u xukuumad wadaaga ku soo dhisayay kaga ekeed saqdi dhexe ee xalay laakiin wax heshiis ah lagama gaarin khilaafka soo jireenka ah ee dhex yaala Yahuudda diinta ku kala tagtay iyo garabyada cilmaaniga ah ee isbahaysiga garabka midig. hogaamiyaha Israa'iil ayaa aad isugu dhabarjabiyay sidii isugu soo koobi lahaa kala fogaanshaha. xitaa waxaa la sheegay in uu jago wasiir u ballan qaaday dadka inta badan ka soo horjeeday ee ka tirsanaa qolyaha ay siyaasadooda bidixda tahay balse waa ay ka diideen. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV caawa waa naga inta